oo kale ayaa hadda ka maqan kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana xaqiiqo ah in bedelkiisu saxda ah hesho kooxda Los Merengueska in ay dhulka ka kici doonto isla markaana ay noqon doonto koox markaasi aan la dhageysan karin tartan xooggan geli karta maadaama labadan bari ay xaalad ku xun tahay kooxda uu hogaamiyo tababare Santiago Solari maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa magacaabay qiimaha ay tahay in Real Madrid ay kula wareegi karto haddii ay doonayso saxiixa xidiga waqtiga dheer bartilmaameedku ahaa Eden Hazard xidiga reer Belgium ayaa si cad markaas u sheegay in dhamadka xil ciyaareedka uu go'aamin doono mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea wargeyska Telegraph ee ka soo baxay gudaha dalka England ayaa shaaciyay qiimaha ay maamulka Chelsea dul dhigeen waxaana ay doonayaan in Hazard haddii uu ka baxayo kooxda kubadda cagta ee Blueska in qiimaha ay doonayaan in ay kula wareegto Real Madrid maamulka Chelsea ayaa go'aan waxa ay ku gaareen in 100 milyan gani uu Hazard kooxda kaga bixi karo inkastoo uu hal sano oo kaliya uu markaasi qandaraaskiisa ka harsanaan doono marka la gaaro bishii June ee soo aadan madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Florentino Perez ayaa dhamadka xil ciyaareedkan kooxdiisa isbedelo weyn markaas ku sameyn doona waxaana la fahmayaa in Eden Hazard uu ka mid noqon doono magacyada ugu horeeya oo miiska soo saari doono madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin Blues dhankeedu warka ka soo baxay ayaa wuxuu tilmaamayaa in 100 milyan oo gani ay markaasi ku dalbanayaan hadiiba ay fasaxayaan laacibkooda reer Belgium sida warbixinta Telegraph lagu cadeeyay hadii uu Eden Hazard kooxdu markaas u cadeeyo in uu baxayo suuqa xagaaga ee dhamadka xil ciyaareedkan waxay maamulka Chelsea diyaar u yihiin in markaasi aanu qiimo hoose kaga bixi karin garoonka Stamford Bridge oo ay kooxda kubadda cagta Chelsea ku ciyaarto waxaana la sugayaa hadii ay Real Madrid qiimaha diyaar u tahay in ay kula wareegto saxiixa laacibka reer Belgium ee Eden Hazard iyadoo waliba Real Madrid la fahansan yahay waliba si xoogan in dhamadka xil ciyaareedkan ay si aada isbedel weyn ugu sameyn doonto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maadaama kooxdu ay ka tageen shakhsiyaad muhiim ah isla